Soo dhawaada saaxiibayaal, sheekadeena maanta waxay ka bilaabmaysaa ninkan oo ciidanka garaacayaan oo ay leeyihiin sheeg isna ilaa hadda qira la war waa idin baryaa iskay dhaafa aniga kama dambeynin ogoo hadda qira weysid inaasaan garaacitaanka kugu sii hayn doono midaasna ogo markaas limaya waa idin baryaa aniga waxsna kama dambeynin maxaan qartaa waxaa ogahayna ma jirto may wax walba ka warqabtaa waxaa la rabaa inaad sheegtid oo naqaritid kii askari kala kula hadlay ugu ushu ku sii wad haduu sii hadlo waayo wax waro dhakeen waayo sidii marka xalo kii kala la sii hadlay markaas la sii wad waana dishaanikan ilaa oo ka sheego xaqiiqada inuu kala ka sheego ninka way soo qabteen sidii jeelka ku soo celiyay marka kadib jeelka lagu soo celiyay ninka laakiin ninka isla hadlay aniga maxaa galabsaday maxay igu haystaan kaas maasha darbiga dhinaca kale wuxuu ka maqlaa cod kaas la yaabay waxay la hadlay naagtii saaxirada soo bixis kaas la waa aniga meesha soo istaagu qeylna wala waa idin bariya iga fura baakayga fura qof ka dhaxlay meesha idin bariya albaakayga fura dad ma jooga miya ciidanka albaakayga fura waa idin bariya iyaga mid kale askariya oo maanam kaas war maxaa la qeylnaysaa ma idin meesha la joogto ma askari aamin meeshan waxa naaga dhax qeylnayso waa idin bariya ay badbaadiya markaas la qeylam u baahan meesha ku jir ma waa idin bariya meesha wax ku dhex jiro saddexdan nin kale meesha ku xabsiga ku xiran yihiin eegna waa yaabin yihiin meesha maxaa soo galay waa yaabin yihiin faanta saddexdooda is weydiinaa war maxaa ku dhacay ninkii kaas la cod ma maqashaadi ma aan wax codama maqla aniga ki askariyan maloo ka soo cod waxaan cod maqloone war meesha ku laabo qeydadana naga daa hadii mar labaad ogow dama soo gala ku dhamkaas oo ninka kale weyna waa idin bariya oo ku bariya albaakayga fur hadii kale waa kana naagtaana maxay haday cunayso waa ku bariya ki askariga sidii uu iska dhigatay raashib isla meesha iska istaaga ninkan sidii ayuu weynoya waa ku bariya albaakayga fur ayuu ku haya kaas laan wax cod ma maqlo beentada baran iga dhaaf meesha adiga joog war uma baahan oo leeyahay oo askariga ka xun waa ku bariya albaakayga fur lintii sidii sii wata oo hintii sii wada wuxuu sameeyay ma yaqaano ki askariga sidii afku taagaya isna kan xalay oo ku bariya albaakayga fur war aad binaadan matiid miya waa ka naagta saaxirada soo gashay lagu yeekisi jiidanayso ayadana lagu yeekisi jiidan kaas la waa ku bariya waa kay badbaadi ninka lagu yaabo lagu sii jiitaba ninka kalena muxuu sii wici doonaa maxaa laakiin askari kale oo saaxiibkiisa ayuu soo wada warkaal ninka fiirinay jeelkay furaan gudaha galaya markaas waxay arkayaan ninkii oo lugta laga cunay oo lugta dhan bardhan jaran ay arkayaan markaas maanta dhan maxay lahaay badbaadiyo anoo oynayo ayad dhigeysanaysan waa kan aniga lugteeda ayaa saan ku maqan markaas waa maxaan meeshan noocan wax waa maxsan waxa u dhacay waa maxaa waay markaas wuxuu hal lug oo lugta kala jaro raba inuu fiiriyo naagtii aba isla markaa sirta hoos iska soo dhaxbacdo ee lugta jiidanay labada askari naxdin meesha la tago kiina waa idin bariyay qaab inta kale aniga wada dhameystiran meeshan iga wada waa idin bariyaa markaas xada waaya blo ku qaadana bal aamus naga ku qaadana idin bariyaa isbitaal geeyo lugteeda aniga way maqantahay taasna waxa ku maqnaat waa inta iga dhaga adeegtay hadda mar albaakayga furlaadeen waxaan dhameeyay maadeen sidoo uu ku cabaaday uu ku oynayo soo qaadeen sidii qolkii la soo baxeen saddexdan nin ay igana dheh waa idin bari anagana meesha naga furo hadii kale waa sida ninkan camaan loo cun doona anagana marnayna xubnaheena meesha ku weyno ciidanku wax ma qeysin miya anaga naga furo meesha naga badbaadiyo saddexdooda ma ka saa isla hadlay marka meesha aniga buux mar labaad marka naagta jeelka ka soo dhaxlay albaakayga fura laada ay furbaysin ogaada inaan isticmaalo doono sixirkayga meesha ka soo dhaxbixi doono albaaka liga furo waan soo bixi doona ogaada waan imaan doona ay leedahay kaas saddexdii kale igana war meesha naga furo anaga sheekadeena maanta inta